wacan oo wanaagsan dhammaantiin saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya qodobada xilligan aan idiin haynana waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay madaxweyne xasan sheekh oo jawaab culus siiyay beesha caalamka oo iyagu war ka soo saaray shirkii burburay ee madaxweynaha ee golaha mustaqbalka Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya oo ku adkaysatay mowqifkeeda xilli beesha caalamka ay soo saartay digniin adag oo ku aadan madaxda Soomaalida haddaba maxaa soconaya warbixin aan idinkaga haynaa golaha mustaqbalka Soomaaliya oo wada qorshe halis ah oo kalena madaxweyne xasan sheekh iyo golahan oo ku fakaraya dhisidda dowlad cusub haddii xaalka uu sidan sii ahaado iyo arintan oo mugdi gelin karaysa mustaqbalka xasiloonida Soomaaliya wararka kale waxaa ka mid ah xiisad cusub oo ka dhex qaraxday maamulada Puntland iyo Waqooyi Bari kadib markii dowladda federaalka gaar ahaan guddiga doorashooyinka ay shaaciyeen in doorasho qof iyo cod ah ay ka qabanayaan maamulka cusub ee Waqooyi Bari iyo Siciidani oo kasoo horjeestay go'aankaas jawaab adagna ka helay dhigiisa Firdhiye iyo madaxweyne xasan sheekh oo bilaabaya safarro uu ku tagayo dowlad goboleedyada taageersan siyaasaddiisa qodobadaas aan ku faahin doona barnaamijka insha Allah dadna waa cusub tahay subscribe tan iyo 11 sidoo kale muuqaalka like saar aad baad u mahadsantihiin aynu ku horeyno madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa jawaab culus siiyay xubnaha beesha caalamka oo iyagu war ka soo saaray shirkii burburay ee u dhaxeeyay madaxweynaha iyo sidoo kale golaha mustaqbalka Soomaaliya kadib markii beesha caalamka ay shaacisay inay ka xun tahay inay burbureen wadahadalladaas oo una baaqday madaxda dowladda federaalka in ay dib u soo nooleyso shirkaas iyo sidoo kale shirar kale oo muhiim ah oo arrimahaasi aad iyo aad uga xiiso duwan dowladda federaalka Soomaaliya waxay ku adkaysatay inaysan marraba ka laaban doonin qorshaha ay dalka ku gaarsiinayso doorasho qof iyo cod ah xilli ay natiijo la'aan iyo isfaham waa ku soo dhamaadeen wadahadaladii xasaasiga ah ee u dhaxeeyay dowladda iyo isbahaysiga mucaaradka ee loo yaqaan golaha mustaqbalka Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisaba waxay u sheegeen beesha caalamka in marraba aysan gorgortan ka galaynin in dalka doorasho qof iyo cod ah la gaarsiiyo dastuurkan wax ka bedel lagu sameeyo maadaama beesha caalamka ay sheegeen inay ka xun yihiin burburka iyo sidoo kaleeto fashilka ku yimid wadahadaladii markaasi u socday dhinacyadaasi wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Balcad oo ah ninka sida aadka ugu dhow madaxweynaha ayaa sheegay in dowladdu ay weli diyaar u tahay wadahadal furan tanaasul dhanka qabka ama qaabka doorasho ee farsamada iyo wadatashi qaran oo ballaaran ha yeeshee waxa uu si adag u qeexay in jihada loo socdo ee hirgelinta doorasho tooska ah ay tahay mid muqadas ah oo aan gorgortan laga gelaynin madaxweynuhuna uusan arrinkaasi marraba beel caalam iyo beel kaleba uusan ka aqbalaynin qaramada midoobay waxa ay u muujiyeen horay niyadjab ku aadan in dhinacyadu ay ku guuldareysteen in heshiis ay ka gaaraan arrimaha la isku hayo inkastoo ay soo dhaweeyeen ballanqaadka ah in wadahadalka markaasi lasii wado ergada beesha caalamka ayaa waxa ay caddeeyeen inay diyaar u yihiin taageero looga baahdo dhankooda oo ku aadan in xal laga gaaro qodobada markaasi xasaasiga ah ee la isku hayo kuwaas oo salka ku haya dastuurka iyo sidoo kaleeto hanaanka doorashooyinka madaxweyne xasan sheekh ayaa waxa uu u muuqdaa mid markaasi go'aanadiisa iyo mowqifyadiisa si weyn ugu adkaysanaya islamarkaana meel cidlo ah isaga tuuraya wararka iyo sidoo kaleeto tabashooyinka ka imaanaya dhinacyada kala duwan oo xitaa beesha caalamka ay ku jirto waxaa muuqanaysaa in madaxweyne xasan sheekh uu si la yaqaano oo adag ugu adkaysanayo go'aankiisa ku saabsan in dalka doorashooyin toos ah laga hirgeliyo sidoo kaleetana horey loo socodsiiyey wax ka beddelka lagu sameynayo dastuurka kumeelgaarka ah ee muddada dheer markaasi kumeelgaarka ahaa arrimahan waxay sii adkeynayaan xaaladaha siyaasadeed ee dalka iyo sidoo kaleeto inaanan rajo laga qabin in shirarka madaxweynaha iyo sidoo kale xubnaha golaha mustaqbalka Soomaaliya ay noqdaan kuwa guuleysta ama miro dhala si kastaba ha noqotee shirarkii u dhaxeeyay madaxweynaha iyo sidoo kale xubnaha golaha mustaqbalka Soomaaliya ayaa iyagu gabi ahaanba sidaasi ku fashilmay dhanka kaleeta haddii aynu eegno golaha mustaqbalka Soomaaliya waxa ay yeesheen shirar xasaasi ah kadib ku burburkii ku yimid wadahadalkii ay la lahaayeen madaxweynaha waxay sidoo kale la kulmeen xubnaha beesha caalamka kadib fashilkii wadahadalka maalmihii lasoo dhaafay ka socday Muqdisho gaar ahaan u dhaxeeyay dowladda federaalka iyo madaxweynaha waxay golaha mustaqbalka bilaabeen in ay yeeshaan shirar ay uga arrinsanayaan tallaabooyinka xiga ay qaadayaan waxayna sidoo kaleeto la kulmeen wakiilada beesha caalamka ergeyga u qaabilsan arrimaha Soomaaliya qaramada midoobay James Wan oo xiriir la sameeyay madaxda Soomaalida ayaa rajiyay sii socoshada wadahadallada Wan ayaa sheegay in labada dhinac uu u jeediyey sii wadista wadahadallada si xal looga gaaro xiisada siyaasadeed ee taagan taasi oo silka ku haysa hanaanka doorashada iyo wax ka beddelka dastuurka
dhanka kaleeto laftarkooda golaha mustaqbalka Soomaaliya waxay sidoo kale kulamo la yeesheen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyaga oo kala hadlay arrimo ku saabsan muhiimadda ay leedahay in dalka markaasi la badbaadiyo. Haddaba xubnaha golaha mustaqbalka Soomaaliya ayaa hadda waxaa lagu soo waramayaa inay ka fekerayaan qorshihii iyo weliba qaabkii ay uga shaqeyn lahaayeen in ay markaasi sameeyaan dowlad cusub oo ka madax bannaan midda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud marka uu dhammaado madaxweynaha madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Xubnaha golaha mustaqbalka Soomaaliya ayaa arrinkan si weyn ugu fekeraya. Qodobkan ama arrinkan ayaa waxay tahay mid markaasi halis gelin karta xasiloonida Soomaaliya ee muddooyinkii lasoo dhaafay ahayd mid degan. Haddii lagu dhawaaqo dowlad kale isla mar ahaantaana uu meel adag kala gaaro isfaham darrada madaxweynaha iyo xubnaha mucaaradka ku ah, waa arrin kale oo xaaladda sii adkeyn karaysa. Beesha caalamka iyo weliba daneeyayaasha Soomaaliya ee caalamiga ahna waa mid markaasi si weyn ay uga soo horjeesanayaan amaba ay u diidayaan wax kastaahi oo keeni karaya dowlado isbarbar socda ama doorashooyin isbarbar socda oo dhinacyadu ay kala qabsanayaan. Inkasta oo madaxweyne Xasan Sheekh madaxweynaadkiisa weli uu yahay, laakiin waqtiga ka dhiman uu yahay mid aad u kooban oo ah wax xitaa ka yar 3 bilood oo rasmi ah, haddana waxa uu ku adkeysanayaa in uu qabanayo doorashooyin haddii la gaaro May 2026. Laakiin su'aalaha la isweydiinaya ayaa waxay yihiin sidee madaxweynaha uu ku qabanayaa doorashooyinkaas maadaama uusan haynin dadkii la tartami lahaa, sidoo kaleeto ay ka maqan yihiin maamul goboleedyadii markaasi qayb ka mid ah weliba kuwoodii ugu muhiimsanaa ama ugu waaweynaa. Madaxweynaha waxyaabahaas oo dhan ayaa markaasi hor yaalla, laakiinse madaxweynuhu wuxuu ku adkeysanayaa in doorashooyinkaasi la qaban doono. Dadka saadaaliya arrimaha siyaasadda ayaa aaminsan in madaxweynaha uu u socdo muddo kororsi, isla markaana marka madaxweynaadkiisa uu dhammaado kadib uu doonayo in la gaaro heshiisyo muddo kororsi uu ku helayo, kadibna lagu gaarayo heshiis siyaasadeed oo dhinaca doorashooyinka ah. Waa hagaag saaxiibayaal, barnaamijkeena wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaad la socotaan markana. Maamulada waqooyi bari iyo maamulka kale ee Puntland ayaa waxaa ka dhex qarxay dagaal nooc cusub ah kadib markii guddiga doorashooyinka ay shaaciyeen in ay ka qabanayaan maamulka waqooyi bari doorashooyin, gaar ahaan magaalooyinka Laascaanood iyo sidoo kaleeto Taleex ee waqooyi bari Soomaaliya. Haddaba guddiga doorashooyinka ayaa waxay shaaciyeen liiska magaalooyinka ay dhowaan ka qabanayaan doorashooyinka dowlad goboleedyada golaha deegaanka. Dowlad goboleedyadaasi waxaa ku jira oo lagu soo daray dowlad goboleedka waqooyi bari oo isagu dhowaangal ah ama cusub. Haddaba markii liiskaasi uu ka soo baxay guddiga doorashooyinka dowladda Soomaaliya, waxaa durbadiiba kasoo jawaabay Puntland, waxaana Puntland ay sheegtay in deegaanadaasi sool weeyaane aysan dowladdu ka qaban karaynin wax doorashooyin ah, arrinkaasina ay tahay mid marnaba aysan aqbali karin Puntland. Puntland marka ay warqad soo saartay, waxaa sidoo kaleeto warqad degdeg ah soo saaray maamulka waqooyi bari oo sheegay isla markaana uu ku eedeeyay Puntland inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha ee waqooyi bari, isla mar ahaantaana arrinkaasi waqooyi bari state aysan aqbali karin. Waa dagaal ka dhex qarxay Puntland iyo sidoo kaleeto waqooyi bari. Puntland waxay dafirsan tahay in magaalada Laascaanood iyo deegaanada kale ee markaasi sool aysan ahayn meel markaasi gooni ah ama gaar ah oo maamul cusub ah, waxayna sheegaysaa in arrinkaasi ay tahay mid ay ka dhalan karaan cawaaqib. Laakiinse waqooyi bari maamulkooda waxay sheegayaan in ay qabsan doonaan doorashooyinkaas. Puntland haddii ay isku daydo inay faragelin ku samayso, ay qaadi doonaan tallaabo markaasi ay isaga difaacayaan. Ugu dambeyn, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa inuu safarro ku tago dowlad goboleedyada taageersan siyaasaddiisa. Maamulka ugu horeeya ee uu tegaya ayaa lagu soo waramayaa inuu yahay maamulka uu hogaamiyo Cabdicasiis Laftagareen ee Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana uu kala soo hadli doonaa arrimo ku saabsan doorashooyinka iyo weliba siyaasadda dowladda Soomaaliya. Wararkii waa naga inta.